Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Ardayga ku soo dhawaada Caawiya Online College. Insha Allah maanta waxaan inoo bilaaban doono seminaarkiina ahaa Thinking Like Leader. Adiga qof yahow ardayay isla markaan daneynaya in uu u fikiro si leader ah ama ahmiyadiisa ay tahay in uu noqdo leader. Haddaba waa inaad ka soo baxdaan shuruudahan aan soo sheegi doono. Haddaba waa inaad nug u lahaataa seminaarkiina kaasoo aan ku sheegi doono insha Allah waxa leaderska ama qofka leaderka lagu baahan yahay iyo how aad ugu fikiri kartaa in aad noqoto leader ama qof leader ah. Haddaad leader noqotana oo maxaa lagaaga baahan yahay? Okay. Seminaarkeena oo daygiisa koowaad ahaa ama maalintiisa koowaad ah. Okay. Welcome. Can you anticipate the needs of others before they even ask you for something? Ma rajayn lahayd adiga qofkan baranaya leaderka ama qofkan baranaya seminaarka siduu u fikiri lahaa leadernimada ama si uu ugu fikiri lahaa si uu u noqdo leader oo ma rajayn lahayd baahida kuwa kale kaasoo inta aan horta su'aal nafsadaada isweydiinin adi ahaan horta iska bilaaw oo ma jeclaan lahayd ama ma rajayn lahayd baahi oo ma kugu haysaa in aad noqoto horta ama aad u fikirto si leader ah. Adiga ahaan nafsadaada iska bilaaw marka hore. Oo midda xigta, how well you can predict what is going to happen in your industry over the next 5 years. Isla markaasna ma sameyn lahayd ama sidee ayaad u sameyn lahayd saadaalin kaasoo ku sameyn lahayd deegaankaaga. Deegaankayga saadaalinta aan ku sameynayo maxay tahay? Waxa isla markaasna dhici doona 5 sano isla markaana nagu xigta. Jawaabtaada oo isla markaasna su'aalahaasi ayaa waxay noqon doontaa you are thinking like a leader. Inaad u fikirto si hogaamiye oo kale. Which can significantly impact your career advancement. Kaasoo isla markaasna saameyn ku yeelan doonto horumarinta khibradaada. In my book Invaluable, buuggeega isla markaasna ah ama buuggeega ah midka qiimaha badan oo ah waa buugga ama seminaarka hadda aan sameyn doono oo ah Thinking Like a Leader. Okay. I explored how to help individuals increase the value of their time and quality of their work life. Waxa isla markaan aan sameyn doonaa inaan ku soo bandhigno sida qofka aan ugu caawin karno inuu kordhiyo muxuu kordhinayaa qiimihiisa oo ah qiimihiisa waqti iyo tayadiisa shaqo. In other words, marka loo eegana how to become invaluable. Sidee ayaan u noqon karaa mid qiimo weyn? This course-gaani Thinking Like a Leader kaasoo isla markaasna ah inaan u fikirno si leader ah is a part of a 5 courses series on helping you become invaluable and get the most from your career. Waxa ay tahay
shanta isla markaa qeybood kaasoo isla markaana adiga ka caawin doonto inaad noqoto mid qiimo weyn leh isla markaasna aad hesho xirfad aad kaga dhaxasho weliba seminaarkan hadda aan bilaabi doono insha allah ardayaal seminaarkeena oo ah thinking like a leader ayaa wuxuu yahay qofka bini'aadanka ama qof shakhsiyan ahaan marka uu doonayo in uu noqdo leader ama hogaamiye maxaa isla markaa nafsad ahaantiisa loogu baahan yahay ama shuruudo ahaan in uu qabto kow maxaa isla markaasna qofkaas leaderka naftirkiisa marka uu noqdona maxaa loogu baahan yahay naftirkiisaba insha allah waa baran doonaa seminar objectives seminaarkeena dhan intaan ku guda jirnoba wuxuu ka hadlayaa afartaani oo keliya hadba maxay yihiin afartaani ayaa waxay yihiin company safety market safety customer safety and insha allah conclusion aan sameyn doono insha allah okay hadday yihiin uljeedkeena halahaani ama ay yihiin aimkeena saddexdaani ama afartaani or how to become a leader marka waayahay okay aan ka bilaawno marka company safety aan ka bilaawno maxaa la dhahaa company safety oo maxaa tahay company safety yow haddii aan rabo in aan noqdo leader oo adiga maxaa ii tahay oo inta iga soo gelaysaa oo adiga maxay tahay faa'iidada aan kugu qabo in aan ku barto company safety yow okay haddaba eeg marka koo waxaa laga rabaa marka lagu dhahayo company safety waa tan ugu koowaad ama objectiveskeena ama hadafkeena ugu koowaad ama qofka laga rabo in oo u fikiro si leader ah ama qofka rabo in uu noqdo leader loogu baahan yahay in uu barto muxuu baranayaa kow understanding your company kow adiga ahaan ama qofka leaderka ahow ama qofka rabo in uu noqdo leaderka waa inaad fahantaa horta maxaad fahmaysaa kambanigaaga waa inaad fahantaa ka waran hadduu qofku leeyahay waxaan rabaa inaan noqdo leader uma yaqaano kambaniga ruleskiisa uma yaqaano kambaniga wuxuu yahay uma yaqaano kambaniga wuxuu qabto this is leader ma noqon karaa no lambarka koowaad maxaa lagu dhahay marka waa inaad fahantaa kambanigaaga waa inaad fahantaa labo waa in aad fahantaa ruleska isla markaasna u degan kambanigaaga waan ognahay company waliba institution waliba ke maxalla bangi waliba ama meel waliba ama firm waliba dheh waxay leedahay rule company aan rule lahayn ama bangi aan rule lahayn ama institution aan rule lahayn maba jiraba waxaa lagu dhahay marka koowaad waa inaad fahantaa kambanigaaga labo waa in aad fahantaa ruleka isla markaasna u yaala kambanigaaga saddex waa in aad fahantaa the rule of money sharciyada isla markaasna ama qaabka lacag bixinta isla markaasna kambanigaas waa inaad fahantaa haddii ka waran aan rabo inaan noqdo leader ama aan ahay leader aanan aqoon kambanigani ama kambaniga aan u shaqeeyo aan leaderka ka ahay qaabka uu wax u bixiyo I am not a leader haddaanan aqoonin marka haddaanan aqoonin I am not a leader but laakiin haddaan fahansanahay the rule of the money haddaad fahansanahay this is I am a leader okay understanding your company's future waa inaad fahansan tahay haddana mustaqbalka kambanigaaga maxaa laga wadaa ardayaal waxaa laga wadaa it means waa inaad fahansanaataa 5 sano xigta kambanigaaga meesha uu gaari doono 5 sano soo socota kambanigaaga qaabka uu isku bedeli doono 5 sano soo socota ama xigta kambanigaaga muxuu qaban doonaa waa inaad fahansanaataa understanding what your company wants from you
haddana adiga ay kugu soo laabato marka sheekada oo waxaa lagu dhahay waa inaad fahansanaataa maxaad fahansanaanaysaa waxa uu kambanigaaga adiga kaa rabo kambanigaaga naftirkiisa muxuu kaa rabaa waa inaad fahansanaataa ka waran haddaan dhaho I'm a leader and I don't know what the company wants from me ma aqaano haddana kambanigaaga wuxuu iga rabo haddaan dhaho ka waran macquul yaa taasi maya waa objectiveskeena koowaad oo ah company saviba ayay ku jirtaa part of them ayay ka tahay kaasoo ah understanding waa inaad fahansanaadaa ama aad fahansan tahay qof yahow what your company wants from you waxa kambanigaaga isla markaa adiga uu kaa rabo waa inaad fahansanaataa this is wuxuu ahaa objectiveskeena koowaad oo ah company saving ha aadna marka objectiveskeena labaad oo ah market saving waxaan soo ogaanay ama aan soo baranay company saving wax la dhaho oo isla markaasna kambanigeena oo ku saabsan taasoo aan ka soo sheegnay ilaa 4 qodobood soma ilaa 5 qodobood hadda maxaa ogaanaynaa marka market saving wax la dhaho market saving maxaa tahay haddana waxa ugu horeeyo your company's business ganacsiga isla markaasna uu qabto kambanigaaga waa inaad ogaato ama aad taqaanaaba haddii ka waran I'm a leader ayaan ku dhahay okay waan kugu dhaafay leader inaad tahay and I don't know what to do for my company mana aqaano waxa ay isla markaasna qabato kambanigayga ma aqaano ama businesska oo kambanigayga qabto ama ganacsiga uu qabto kambanigayga ma aqaano laakiin waxaan ahay leader this is a leader no this is not leader haye caring about market trends maxaa laga rabaa marka kale waa inaad daryeeshaa isbedelka suuqa ama suuqyada dheh it means maxaa laga wadaa waa inaad daryeeshaa ama aad og tahay wax waliba oo suuq oo ku soo kordhay wax waliba isla markaasna suuq lagu soo kordhiyay wax walba isbedel suuqa ka dhacay wax walba oo degrees oo suuqa ka dhacay waa inaad og tahay ama ka warhaysaa haddii ka waran aan ku dhaho leader aan ahay oo mana aqaano suuqa meeshuu marayo mana aqaano suuqa waxa ku cusub mana aqaano suuqa wuxuu sameynayo this is possible no this is not a leader haddii aad sidaas aad tahaybo aadan ka warhaynin suuqa ama suuqa ku jirtid waxa ka socda ama wax isbedel dhacaya haddaba waxa ogaataa qofka leaderka ahow ama qofka leaderka baranaya ama qofka hami u leh inuu leaderka bartobo oo isla markaasna uu noqdo haddaba ma jihid leader haddii laga waayo qodobadan soo socda ama hadda aan ka soo hadalnay insha Allah okay qodobka saddexaad ayaa wuxuu yahay enhancing product and service knowledge enhancing maxaa marka waa inaad kor u qaadaa maxaad u qaadaysaa badeecadaada iyo adeegaagaba waa inaad kor u qaataa ka waran bal haddaan dhan leader aan ahay oo productigayga iyo adeegaygaba meeshiisaba kor uma kacoba meeshiisa u joogaaba oo wax lagu soo darano ma laha isla markaasna promotion lagu sameeyo ma laha this is what meeshiisa ayuu taagan yahay this is possible no wax macquul ah ma aha haddii aad leader aad tahay waxa laga rabaa inaad sare u kiciso ama aad kiciso ama kor u qaado adeegyada iyo badeecada isla markaas adiga aad qabanaysid this is part of market service kan ugu dambeeya ayaa wuxuu yahay understanding the competitions waa in aad isla markaasna ogaataa dadka loolanka kula ah ama dadka adiga kula tartamaya ama dadka aad ola jirtid tartanka waa in aad isla markaasna aad fahansan tahay ama aad og tahay haddii aadan ogeyn ka waran ama aad isku haysatid inaad suuqa adiga monopoly aad ku haysatid oo isla markaasna ay jiraan dad kale isla markaa adiga ka waabeen oo monopoly suuqa ku haysta laakiin adiga aad aaminsan tahay suuqa monopoly adiga ayaa ku haysatid this is not part of market safety waa inaad ogaataa ama aad ka warhaysaa ama aad ka warqabtaa competitioniska isla markaasna adiga kula ah ama suuqa ka socda ama competitioniska suuqa ku soo kordha
This is objective 2. Our objective 3 maxaa laga rabaa marka koo waxaan soo ogaanay company safety waxyaalaha isla markaa company-ga laga rabo macnaha labo market safety waxyaalaha isla markaa suuqa laga rabo inaan ka ogaado saddex customer safety waxyaalaha isla markaasna laga rabo in aan ka ogaado customer-kayga koo waxaa soo ogaatay company-gaaga labo waxaa soo ogaatay waxyaalaha isla marka laga rabo inaad ka ogaato suuqaaga saddex waxaa laga rabaa inaad ogaato ama aad barato waxyaalaha isla markaasna ku saabsan customer-kaaga ama macaamiishaadaba okay maxaa ugu horeyn marka understanding waa inaad fahansan tahay the relationship xiriirka between u dhaxeeya customers and your career adiga xirfadaada ama adiga naftirkaaga iyo customer-kaaga ama macaamiishaada xiriirkiina halkuu la eg yahay halkuu ayuu yahay ilaa inta ayuu gaarayaa waa inaad og tahay waa inaad fahansan tahay qof yahow isla markaasna baranaya in uu noqdo leader ama qof yahow hadda ah leader kaba understanding customer compliance waa inaad fahansan tahay maxaad fahansanaanaysaa caqabadaha isla markaasna ka haysta company-gaaga customer-ka company-gaaga hadduu caqabado uu ka haysta customer-kaaga waa in aad ahaataa qof og haddaadan ogeyn ka waran oo customer-kii aad arkaysidba customer la imaanayo isla markaana baxaya oo imaanaya kadibna iska baxaya aanan ogeyn waxa caqabad ama dhibaato isla markaasna ka haysata company-gaaga oo ma dhihi karnaa marka waxaa tahay leader no ma dhihi karno leader ayaa tahay haddaa leader adaad tahay qof leader ama hogaamiye ah waxaa laga rabaa inaad og tahay ama aad fahansan tahay waxa caqabad isla markaasna haysta customer-kaaga ama macaamiishaada resolving haddana inaad ku samayso resolving customer compliance waa inaad xalisaa haddana waa ogaatay oo dhibaatada haysata ayaad ogaatay customer-kaaga ama macaamiishaaga kadib maxaa laga rabaa inaad xaliso ayaa laga rabaa si customer-kaaga oo hadhow kugu noqdo customer retention ama customer had iyo jeerba ku ag jooga oo isla markaana meel kale uu kaadan aadin koo maxaa samaysay waxaad ogaatay macnaha xiriirka idinka dhexeeya adiga customer-kaaga labo haddana waxaa ogaatay dhibaatada isla markaana customer-kaaga haysata saddex waxaa samaysay inaad xalisoba dhibaatadaada oo ma laga yaabaa inuu customer-kaaga kaa tago no justin waxaa ogaataa inaad tahay leader marka understanding waa inaad fahansantahay haddana your customer profile-ka customer-kaaga uu leeyahay waa inaad fahantaa muuqaalka uu customer-kaaga uu leeyahay waa inaad ahaataa qof fahansan haddaba waa part of customer saving saddex ama sorry waa kii shanaad oo ah understanding customers while at work waa inaad fahansan tahay macaamiishaada marka ay joogaan shaqada it means markay customer-kaaga ama macaamiishaada ama client-kaaga ay ku imaadaan ay shaqada ay kugu imaadaan in ay wax ka iibsadaan ayaa waxaa laga rabaaba inaad og tahay ama aad fahansan tahayba hadduu uu dareemayo satisfaction ama hadduu uu dareemayo compliance waa inaad aad tahay qof kala fahansan last oo ah conclusion ardayaal seminaarkeena deegiisa koowaad waxaan ku soo baranay ama aan ku ogaanay ama muhiimad ay leedahay dhammaan seminaarkeena in uu yahay saddex kow company safety waxa isla markaasna company-gaaga gudihiisa laga rabo adi ahaan xitaa aad ku jirtid waliba labo oo ah market safety suuqa waxyaalaha isla markaas suuqa laga rabo inaad ka ogaato iyo saddex customer safety waxyaalaha isla markaasna laga baahan yahay inaad customer-kaaga ka warqabto ayuuna ka hadlayaa objectives-keena saddexaad ardayaal waxaan filayaa in aad hadda inta aanan sii gudagelin ama si deeply aan ugala hadlin in aad
in badan aad ka fahantay haddii aad rabto inaad noqdo leader ama haddii aad rabto inaad u fikirto si leader ah ama haddaad tahay leader ba waxyaalaha lagaaga baahan yahay ardayaal cashirkeena maanta ama seminaarkeena adeegiisa koowaad halka ayuu inoogu eg yahay wassalaamu calaykum ورحمة الله وبركاته